waxaan u gudbayaa nisa maanta waxaa xukuma mahadsalaad waa maxay aragtida magacaabidiisa maxaad ka aaminsantahay magacaabistiisa maxaan ka aaminsanahay mise asaga maxaan ka aaminsanahay magacaabidiisa saad u aragtaa ani say kuma lihi qof Soomaaliya la magacaabay waaye madaxweyne Soomaaliyeed magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna mahadsalaad aqoon ma laha ma yaqaano hadduu aqoon lahaana uu magacaabeen يعني نيدان وناجينيا ما فيلاyo inuu yaqaano hadduu yaqaanana uu magacaabeen laakiin sidaadoo kale kama soo shaqeyn hay'ad amniga siyaasaddu ka soo shaqeeyay madaxweynaha ku kalsoon taas dib uma arko qaybtaas waa ku saxsan yahay hadaa qaybtii weydiinaysa tiimkiisu ahaa saaxiib buu la ahaa siyaasaddu kala soo shaqeeyay 2 teeram 3 teeram buu xildhibaan noqday dhinacaas hadii laga eego uu noqon karaa taas dib uma arko madaxweynaha inuu saaxiib leeyahay waa positive wax wanaagsan waa waxa ula jeedaa madaxweyne Xasan Sheekh ma yaqaan mahadsalaad waxaan qiyaasayaa in madaxweynaha uu khalad weyn galay inuu mahadsalaad hay'adaas u dhiibay baaritaan fara badan inuu ku sameeyana ahayd hay'adaas kale qofka loo dhiibayna waa la baaraa backgroundkiisa la baaraa aqoontiisa la baaraa shakhsiyadiisa la baaraa xataa hadduu saaxiibka yahay dad kala duwanna waa kala tashtaa aniga markaan maqlay inuu madaxweynuhu ka fikirayo mahadsalaad fariin baan u faray warbixin baan u gudbiyay qof ay saaxiibayeen baan ugu faray warbixintana waa la gaarsiiyay laakiin waan ka naxay markii aan maqlay in ninkaas loo magacaabay aad baan uga naxay runtii maxay sabab mahadsalaad dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyin aad waaweyn buu u geystay nisa institutionka nisa la yiraahdo sida ay u dhisan tahay khataraha ugu waaweyn ay ka hortagto argagixisada gaar ahaan al-shabaab mahadsalaadna xiriir weyn buu la leeyahay muddo dheer oo 8 sano 10 sano ku dhow xiriir wada shaqeyn uu la leeyahay xiriir wuxuu la leeyahay shaqaale uu yahay buu wada shaqeyn xataa ma shaqaale uu yahay wuxuuna ka mid yahay dad aan xogtooda haynay oo mar kastana khatarahooda aan ka hortagi jirnay qaarna anagoo ka hortagayna ayna dhaafi jireen kareemyo waaweyn dalkan uu ka sameeyay waxaan diyaar u ahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta iyo goob kasta inaan u sheego waxaan rabaa inaan ku sheego sargaalka nabad sugidda Soomaaliya ka tirsan ee sir qaran la wadaaga taliyaha cusub ee la magacaabay waa qof sirtii qaranka u dhiibaya qofkii laga ilaalinay Fahad Yaasiin eed weyn ayaa jeedinaysaa eedaas mar kamida mararka adaa lagu jeedin jiray maanta hay'adii banaanka ka joogta dawladda banaanka ka joogta isla eediyo kala jeedinaysaa raiiska dhicisoma farqi yar baa jira marka dadka aniga ii jeedin jiray sirdoonka may soo shaqeyn dad waxay ahayn siyaasiyiin banaanka iska taagan madaxweynayaal ku jiray taliyaal hore sirdoon ku jiray madaxweynayaal may oran magaceygana may sheegin laakiin dad sirdoon ka soo shaqeeyo madax ka soo noqday aniga ima eedeyn dad siyaasiyiin magaalada iska jooga eedeynay laakiin aniga faylal aan la dhaqmay oo aan la macaamalay oo gacanta ku hayay oo ka shaqeeyay oo resultigoodi aqaano way waxaan ku sheegaa hal iyo labo هل يلامها إلى اللحم كوشة كرا تفضل سودو إلى اللحم كوشة لكن عناوين أهم بنكوشة جاية صبتو هي أدي خصيصات تفاصيل السكرة هذه وريته أنت كخصيص بنكوشة كرا وذا الشقين مركز تراهي وذا الشقين ما شقاله وياه شقاله مركز تراهي وأذان عرس تلينا والسيود أو الشقين كوحر جيسو وحسهلا ما وهم حكوا الشقين هذه وحنرب أنا باك جراوند كوسيو الشباب dad fara badan oo Soomaaliya bay qaar cabsiin ku shaqaalaysiistaan qaarna dhaqaale ku shaqaalaysiistaan baabuurta qaraxyada magaalada la soo galiyo dad baa soo galiyo shabaab ma aha nin indhala oo iska socda ma dadkaas indhala oo iska socda oo meel isaga dhufanaya ma dad baa caawiyo facilitationka u sameeyo dadkaas caawiyo u shaqeeyo inuu ka mid yahay waxyaabo waaweyn dalkan uu ka geystay waxa saanadu ku gabanayay qaarkoodna anaga waa ka hortageynay qaarkoodna waxaan la suganaynay waqti lagu la xisaabtami karo waqtiga lagu la xisaabtami karo maanta jooga oo san xildhibaan ahayn waxa ii sheegtaa waxa waaweyn iyo wada shaqeynta heerka gaartay shaqaalanimada heerka gaarsan aad ku eedeynaysid anaga ma hayno sarunteeda iyo xaqiiqadeeda adiga ma hayn kartid adiga ii sheegay waa maxay kiisaskaas dadka Soomaaliyeed la wadaag waa badan yihiin
laakiin waxaan kuu sheegayaa mid qof ka mid ah hadda uu nool yahay uu joogo caafimaad qabo ra-iisul wasaareyaashii dalka soo maray mid ka mid ah inuu dilo isku dayay iyadoo al-shabaab ay isticmaalayaan waxaan aniga xogta markaan helay ra-iisul wasaarahaasaan wacay maha salaad iyo qof la socda ma kugu imaanayaan ha qaabili baan ku yidhi farqiga u dhexeeya 25 daqiiqo ahayd 25 daqiiqo oo aniga aan soo dhexgalay baan ku noolaaday waa kee ra-iisul wasaarahaas mar raba magaciisa inaan sheego hadda laakiin madaxda qaranku ka mid noqday hay-adaad joogta xilligaad xogtan ogaatay hay-adan joogay mar waxaa jirtay labada aqal ee baarlamaanka iskool bolisiya shir loogu qabanayay oo madaxweynuhu uu furiyey taariikhdii hadda exactly waa la raadin karaa laakiin labada aqal loogu shiray loogu qabanayay waxaa loogu qabanayay iskool bolisiya wuxuu qorsheeyey oo al-shabaab kala shaqeeyey oo mahad karatay oo ninku u shaqeeya ah uu kala shaqeeyey meeshaas in laba baabuur la soo geliyo oo dadkii meesha madaxdii qaranka timid qarax loogu soo geliyo way nool yihiin tafaasiisha ma siinin laakiin gudoomiye cabdi xaashi telefoon baan u diray waxaan ku yiri barrito shirkaas hala baajiyo sababo amni darteed gudoomiye golaha shacabka maxamed mursal baan telefoon u diray waxaan ku yiri barrito shirkaas hala baajiyo sababo amni darteed madaxweynahana saasoo kale aan ugu sheegay laakiin madaxweynaha tafaasiisha oo dhan baan siiyey laakiin labada gudoomiye oo kale waxaan u sheegay sababo amni darro oo argagixisadu maleegayso inay qayb ka tahay mala joojiyay shirkiisa lagu baajiyay goobtiisii la bedelay markii dambana wuu baaqday iyo in la qabtay hadda ma xusuusto laakiin goobtii iskool bolisiyo lagu qaban lahaa waa la kansalay wixii aniga ii muhiimsanaana goobta in la kansalay ahayd isagaana abaabuliyey taliyihii niisa nin la yidhaahdo qoojayare oo dhusmareeb banaankeeda lagu dilay mahad salaada qorsheeyey isagaana dilay niisa taliyihii niisa ee joogay meesha la yidhaahdo dhusmareeb qoojayara la yidhaahdaa nin dhalinyaro ah oo caqli badan oo degan oo qiimo lu ahaa gaalkacyo qarax baa ka dhacay isagaa fuliyey oo ka shaqeeyey oo taliyihii ciidanka militariga qaybtaas madaxda ka ahaa isna qoojaa la oran jiray iyo laba sargaal oo sarsaro oo ciidamada militariga Soomaaliya ka tirsanaa waxaan loogu talagalay xafladda markii la baxo wax allaali wixii ku jiro dhan inay dhintaan oo meesha ku qarxaan qarax saxay ka dhacay gaalkacyo ka dhacay taliye qooja ku dhintaan ku dhahay taliye ciidanka militariga haystay laba taliye oo sarena waa ku dhinteen oo taliye danab waxa uu la jeedaa qaraxii ra'iisul wasaaraha markuu gaalkacyo booqanayay ee dhacay galab meel barxada soo dadka kula hadli rabo waxaan loogu talagalay shirkaas oo dhan in lagu carqaladeeyo dad Soomaaliyeed oo fara badanna meesha ku dhintaan asaga abaabulay asagana ka dambeeyay waana xaqiiqo marqaati iyo cadeyn iyo cid la ogeyd iyo cid kasto kamid ah tafaasiishadan aan sheegi karno magaalada muqdisho hoobiyaal fara badan lagu soo ridi jiray hoobiyaasha asaga gadi jiray asaga isku dubar ridi jiray beesha laga soo ridaana asaga soo ridi jiray waxa intaas ka yaab badan baan ku sheegayaa wuu ogaa in anaga ognahay laakiin wuxuu ku gaban jiray xasaanadu haysto xildhibaanimada ahayd nasiib darro iyo calool xumo iyo dhibaato ku tahay in hay'adda nabad sugidda qaranka nin amniga dalka khatar ku ah inta loo dhiibo madax looga dhigo waxaan u maleynayaa in lagu sifeyn karo fadeexadii qarniga ka dhacdaynta ma dhamaysatay kiisaskii intaan hadda ugu muhiimsanaa waa kuu sheegay waxaan ku weydiinaa fahad waxaan markay dhacayeen ama xogtan aad helaysa niisaa joogtay qaybo ka mid ah sabab qaarna ma joogin madaxweyne xasan sheekh xilligiisii hore waa tii la soo weeraray madaxtooyada mahad baa qayb ka ahaa intaad joogtay aan eegno wada shaqayntan aad shaqaalaha iyo wada shaqayntan aad sheegaysa ee maanta mahad ku eedeynayso hay'adda nabad sugidda qaranka haysatay taliyihii ugu sarreeyay ahayd dawladda Soomaaliyeed ee dhisnayd waa xildhibaan baarlamaanka ka tirsan maxay xogtiisa loo sheegi waa si sahal waxa la dhihi lahaa nin mucaaradaha la beegsanaya waana been sadis baa la dhihi lahaa wixii dhihi lahaa wax kale lama soo kordhiyeen ma wixii dhihi lahaa waa wax kale laakiin cadeymaha ay niisa hayso inay soo bandhigto mahad oo aan maanta taliya nabad sugid ahayn oo xildhibaan baarlamaan ku jira oo mucaarada maxaa loo sheego hadda xildhibaan lama maxkamadeyn karo maxkamadeyn kama xogta in la sheego hadda xogta cidii khusaysaa loo sheegaa cid kasta looma sheego cidii khusaysaa loo sheegaya ra'iisul wasaare aan ku sheegay wuu ogyahay wax ka yaab badan baan ku sheegayaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble markii la magacaabay xafiiska koowaad uu booqday waxay ahayd niisa uu noo yimid waa sheekaysanay presentation u sameynay warbixinta hay'adda siinay
kabacdi gaar baan ula fariistay dadka al-shabaabka ku xiran ee systemka dawladda ku jira qaarkood waliba meelo muhiim ah ku jira magacyadoodan u tiriyay ma salaad kamid baa dadka aan u sheegay arwakaas reesaaro ha dhoofaad ima sheegin dadka aan u sheegay u tirsho ku jiro kaasoo madaxa gacanta saaray maanta markana kugu celinaya adoo banaanka jooga eedaynta aad hadda jeedinaysid fahdow soo kama wanaagsaneen adoo niisa ka ah agaasime ama niis dawladda ka tirsan in niisa ay macluumaad ka baahiso xogta baahiso si maanta ay markhaati u noqoto maalintaas oo lama awood annaga waxaan ka fikiraynay dadka Soomaaliyeed inta aan xakameyn karin amniga inaan xakameyno khatartan ka weyn ma garan khatar ka weyn baa dhici lahaa celinayba ma khatartan ka weyn qaar waxaan garanayaa khatar ka weyn sameyn lahaa oon qabanay oon xakameynay oon joojinay laakiin aan diinay dadku inay magaalada kala cararaan tan labaad qofka markaad xogta ka gudbinayso waa inaad tallaabo ka qaadi karto ninka waxa dhiman tallaabo kama qaadi karto laakiin hadda waxaan la suganaynaa inuu yimaado meel lagu la xisaabtami karo hadda waa qof caadi ah oo agaasimo ah waa la xisaabtami karaa waa agaasimaha nabad sugidda waa la xisaabtami karaa xasaanad ma la agaasimaha nabad sugidda eeda ay sheegaysid waa eeda waaweyn taliya nabad sugid oo dal xukumaya disaster shaqaale saasoo kale in loo dhiibo hay'adda nabad sugidda saddex shay qof calaaqo leh waa laga ilaaliyaa qof korruptida waa laga ilaaliyaa qof dal shisheeye la shaqeeyna waa laga ilaaliyaa qof wixii ay hay'addu la diriiraysa xiriir la lana waa laga ilaaliyaa madaxweyne xasan sheekh waxaa ku habboonayd ragga kale oo saaxiibada leeyahay ee saddexdaas sifa midna aan calaaqo lahayn inuu dhiibto rag far badan oo wanaagsan oo qaban kara shaqadaas oo saaxiib leeyahay fahad maantay mahasalaad oo aad eedaha waaweyn u jeedinaysid anaga ma hayno cadeymaheeda waana taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaanan eedahan horey aan kuu soo su'aalay kuwa la mid adiga in lagu jeedin jiro wax la mid ah iguma soo jeedin shaab xiriir la leeyahay lagu soo jeedin Abu Amaar magaciisa loogu sheegay oo xarakada ku dhex leeyahay waa eeda waaweyn tan waxba ka sokaynay simple ma aragtaa in eedisha lagu jeedin maanta ku ruwaysaa soo gudaha ku jira hadii adiga hadaa saa u aragto adaa xor u ah laakiin aniga adu sama u aaminta hadaa ruux xaqaaqiqan ku sheega iyo xogaan hayo marka ani wadankan u naxaya dalkan u naxaya dadka go'aanka qaariyaan talo u si gudbiye taladeedii lama dhageysanin waa sabab ay u kalifana banaanka u soo dhigo dhamaantoodna waad gudbisay ee xogahan inteeda badan waa gudbiyey intaan la magacaabin baana xataa gudbiyey aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay malafkaas nisa inaan xiro ayaan jecelahay isna oo aan kaga gudbo su'aalo kooban oo dheeraad ka ah afartii mowduuc ayaan horey u soo sheegay kuwaas oo ka kooban kuna saabsan marxaladda siyaasiga xaaladda gobolka iyo kiis muhiim ah oo la xiriira ciidan dawladda Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo loo diray dalka meel ka baxsan oo la sheegay in la soo tababaray muddo ku siman sanad in ka badan maqan waana ciidan Eritrea loo diray dhalinyaradaas Eritrea loo diray nabad sugidda qortay sida xogteeda aan hayno nambarkooda ma inoo sheegi kartaa bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka